maskaxdaada kobci maankaaga kori macnaheedu waa murtida ku dhaqan maamuuska diintiyo kana sheegtan maadiga mareegteedu waa naftaada mas'uul ka noqo mansabkaaga ha seegin maskax eebba ku siiyana maqaamkeeda ha diidin kor u qaadaha kaabaha bulshada maan kobci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تقاليق هاتي تامركي كوور إذا سوبقة الشانل كينا قولنا سبسكرايب لايك شير كومنت لنا وذاك أصحاب تاذا كنا سوى هذا المقال عصب مقال كينا وحن كفلا قينينا ومحي نفق الدر محيث تعذر ذا كذا شاء نفق الدر ذا أما نفق حميدة وحالة عاف مع درو أو بان تاتو علامات أجيهين يرانت بروتين ذا لوحة فيتامين ذا معادن تأتلقى عنتوينك وحي سيكارة حلس أقطعي ayna halis uga tahay ilmaha ama caruurta koraysa nafaqadu waxay dhistaa koriinada jirka iyo maskaxda ilmaha nafaqa daraduna waxay dhacdaa marka qofka uusan cuntooyin ku filan ama uusan cuntooyinka qaarkood kuwaas oo muhiim u ah caafimaadkiisa iyo koriinadiisa tajribe ay sameeyay qaramada midooba ayaa ku qiyaasay in ka badan 360,000 oo caruur inay la ildaran yihiin nafaqa daro ka dhalatay abaaraha saameeyay Soomaaliya sidaas la mid ah deegaamada Soomaaliya ee waqooyi bari Kenya ayaa waxa iyagana saameeyay abaarta waxaana jira caruur fara badan ee haysta nafaqa darado haddaba waa maxay saameynta ay ku reebo karto nafaqa darada mustaqbalka sidee xal waara loo gaari karaa iyo sidee looga hortagi karaa nafaqa darada su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan hor dhignay dadkana dhageysanayo waxaana ka filaynaa inay qaybta comment aaraadooda noogu reebaan dhageysta iyo daawada haddii fiidiyogan uu ku xiiso geliyo like saar ana naga baqin inaad subscribe noo saarto channelkeena tani fiidiyogan ku xiga inta kulmayno sidaas iyo nabadgelyo